isqabqabsiga dhulka bannaan horta waxa noogu wacan waxa weeye dhammaan waxa la haystaa sharciyo maamuladii naga soo horeeyay ay bixiyeen kuwaasoo inta badan isku cakiran oo ah inay iska hor imanayaan taasoo inta badanna keenta in conflict ka yimaado adase haatay sida ugu fudud ee xallin karno isnilaahno bulshadana danba u tahay dadka sharciyadan qaatayna danba u tahay ayaan inteeda badan ku xallinaa xeradan waxaan soo galnay iyadoo oo dawladda hoose ama beerbeelay maalintaan ugu yarnahay 10 kiis oo khilaafaadka dhulka aan galno maantana waxay maraysaa halkii ugu yarayd oo waxa laga yaabaa toddobaadka inaan 2 ama 3 kiis galno taasina waxa ugu wacan go'aan qaadashada adag ee inta badan ka qaadano khilaafaadka dhulka oo aan isnilaahno sida ugu macquulsan labadaasi group balooriyada isku haysta adoo xallin karaysan inaan ku xallino kullay tulana waxaan soo dhamaysanay 1 sano oo kaamil ah halkaas sano ee kaamilka ah waxaan soo qabanay wax la taaban karo oo tanjibara waxa ka kooba jidka dhexmara xaafadda Sheedeer waaxda Sheekh Maqaahil oo dhererkiisuna uu dhan yahay ilaa 700 mitir oo damra waxa kaloo jira jidka u socda ama isku xulaya halbowlaha magaalada ee jaamacadda Camuud ilaa airportka waxa kaloo jirta sariimada Sheekh Axmed Salaan waxa kaloo jira jidka maanta gabagabadiisii socdo hormaraya dhakhtarka waxaasi waa wax la taaban karo waa inta ugu weynada oo cusub waxyaabaha yaryar tirama laha marka waxaan oran karaa bulshada waxaan dareensiin karaa in maanta horumarku uu socdo ka wanaagsan sidii hore uu socday anaguna waxaan ku tali jirnaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan soo socda ama sanadkan inta gudihiisa aan galnaan hadda bilow ku jirno 10 mashruuc oo waaweyn inaan ka hirgelino haddii Ilaahay yiraahdo 10 mashruuc waxaan ku rajaynaynaa sida ugu quruxda badan ee ugu degdegsan inay naga soo filaan 10ka waxa ka koob noqonaya si wadida jidkan u socda airportka oo ka bilaabmaya xirada traffic-ga ilaa iyo controlka airportka dawadiisa ku joogsan doona jidka isku xidhaya xaafadan Sheekh Axmed Salaan dhexmaraya oo isku xidhaya guriga jaamacadii ilaa iyo jaamacadda Camuud waxa kaloo ku jira jidka Sheekh Cali Jawhar haddii Ilaahay yiraahdo waxa kaloo ku jiri doona 2 saldhig booliis oo sameyn doona ilanka iyo boon inta kalena kulay tolo waxay noqonaysaa mashaariic dawladda hoose dhexdeeda ah oo inaan gaadiid u iibino inaan bilcino